kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan ay wadhanbalka dunida ku soo dhawaada barnaamijkan falanqeynta wararka galabnimo maanta Arbaca taariikhdana ku aasaysan tahay 8 bisha Oktoobar sanadka 2024 qodobada xiisaha leh barnaamijkan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xamse Cabdi Barre oo sheegay in shirkii madasha wada tashiga qaran uu wali socdo isla markaana qodobo laga soo saari doono haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalka ra'iisul wasaaraha falanqeyn ayaan daawadan kaga haynaa qodobada kale barnaamijkan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona qarax qasaale dhaliyay oo markaas la beegsaday ciidamada dawladda Federaalka Soomaaliya kuwa admise ku leeyihiin deegaanka Shabeelle ee gobolka Shabeellada Hoose qaraxaasi qasaare uu dhaliyay ayaa daawadan halkan ku soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona hawlgaladii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ka sameeyay gobolka Galgaduud oo dawladda ay sheegtay markaas inay ku dileen 32 kamid ah milashiyadka ururka Al-Shabaab guulaha kala duwan ee dawladda ay sheegatay ayaa daawadayaal warbixin in kaga haynaa qodobada wararkana caalamkana maanta waxa kamid ah ururka Xisbullah oo markaasi weerar aad u baan ku qaaday magaalada Xayfa waqooyiga dalka Israa'iil qodobadaasi qodobo kale ay ku soo kordhay Soomaalida caalamka ku saabsan ayaa daawadayaal ku maqla doontaan barnaamijkan inta wada ku jiro soo saarista 20 Daarab Xasan fadlan waxa xusuusanaya daawada YouTube-kana ta ku cunsaday dalka dunida subscribe saar sidoo kale page-keena leaderman iyo sidoo kale barahna bulshada u diyaar garoob daawadayaal qodobada ama qashan afafaasan waxa daawadayaal aan ku bilaabana barnaamijkan falanqeynta wararka galabiyada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in markaas shirka madasha wada tashiga qaranka maalmo soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho uu san fashilmin madaxda maamul goboleedyada ee ku laabtay markaas deegaanadoodii ay dadkooda iyo markaas bulshada ay matalaan la soo tashan doonaan kadibna ay dib ugu soo laaban doonaan magaalada Muqdisho si loo sii anba qaado shirka madasha wada tashiga qaran oo maalmo soo dhaafay magaalada Muqdisho ka soo socday ayaa waxa markaas hareeyay buuqaad fara badan iyadoo siyaasiyiinta kala aragti duwan halkaas isku yimaadeen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku khilaafay qodobo dhowr oo markaas ay kamid yihiin doorashooyinka qof iyo codka la filayo 2026 laga qabto Soomaaliya iyadana madaxda maamul goboleedyada markaas ay doonayaan in doorashooyin ay maamushaan oo dadban ay ka qabsadaan goboladooda xagga dawladda federaalka Soomaaliya ay rabto markaas in muddo hal sano midkiiba loogu daro isla markaana ay kala shaqeeyaan si doorashooyin qof iyo cod wadanka ay uga dhici lahayd arintaasi waxa ay soo dadejinaysaa in markaasi dadka Soomaaliyeed ay markaasi ama gobolada ha joogan ama caasimada ay markaasi kulligood ka qayb qaataan doorashooyin qof iyo codka oo markaasi la filayo in 2026 laga qabto Soomaaliya wali barnaamijkeena falqada wararka galabnimo ayaan ku gudbi jirnaa qarax qasaare dhaliya ayaa la soo warinayay inuu ka dhacay magaalada Shabeelle ee gobolka Shabeellada Hoose qaraxan ayaa la beegsaday goob ay fariisimo ku lahaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa admis halkaas oo markaasi ururka Al-Shabaab ay weerar gaadma ku soo qaadeen qaraxan waxa la sheegay in ku geeriyooday ilaa hal askari ah dhintay kala ka dhaawacmeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay sheegeen in ay fashiliyeen weerarkii gaadmada ee ururka Al-Shabaab halkaas ku soo qaadeen isla markaana ay ka hortageen oo aysan u fulin sida markaas ay la damacsanayeen saraakiisha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in markaas ay bilaabi doonaan hawlgal ka dhan ururka Al-Shabaab oo dhammaan deegaanadaas laga sifaynayo ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkan waxayna sheegeen inay ku dileen dhowr askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo kuwa admis sidoo kale ururka Al-Shabaab waxay sheegeen in weerarkan ay ku soo furteen hub fara badan oo markaas ay ka xariireen ciidamada Midowga Afrika ee admis oo halkaas iyagu fariisimo ku lahaa waxa daawadayaal bal markaan hadii aan eegno ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Galgaduud ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay in tuulooyin fara badan oo toostaga deegaanka Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ay halkaasi ku laayeen milashiyad fara badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab qoraal ka soo baxay militariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hawlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa danaba ay ka sameeyeen gobolka Galgaduud lagu dilay in ka badan 35 kamid ah milashiyadka ururka argagixisada ee August isla markaana ay ku soo afjareen markaasi dhibaato fara badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku hayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay gobolka Galgaduud waxay ka wadeen hawlgalo ka dhan ururka Al-Shabaab iyadana ay ka sifeeyeen tuulooyin fara badan oo markaas hoos yimaada deegaanka Ceeldheer ee gobolka Galgaduud tan ayaana qayb ka ah hawlgaladan ayaana imanaya iyadoo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ka bilowday dhammaan gobolada dalka isla markaana la doonayo in laga sifeeyo dhammaan baagiyiga Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wacd ku marinay si wadi doonaan hawlgaladan ka dhanka ururka Al-Shabaab ilaa markaas ay ka xaqiijinayaan ammaanka guud ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka Soomaaliya waxa daawadayaal bal ugu dambeyntii haddaan eegno akhbaraadka caalamka ururka Xisbullah ayaa saacadii la soo dhaafay waxay gantaalo aad u badan ay ku duqeeyeen
duqeeyeen isla markaana ay ku harqiyeen magaalada Xayfa ee waqooyiga dalka Israa'iil halkaas oo ay fariisimo weyn ku leeyihiin Israa'iil ayaana taasina kaga jawaabtay gantaalo iyo sidoo kale duqeymo aad u culus oo ka geysatay magaalada Beirut caasimadda dalka Lebanon halkaas oo ay saldhig ku leeyihiin ururka Islaamiga ee Xisbullah iyo Israa'iil ayaa saacadii soo dhaafay waxay isku yeersiiyeen duqeymo iyo gantaalo aad u waaweyn oo Lebanon midka kale uu ku weerarayay ayadana Israa'iil ay dhanka kala duqeysay maanta magaalada Gaza ee caasimadda dalka Falastiin halkaas ay ku dishay boqolaal kamid ah dadka shacabka ee Falastiin sidoo kale ururka Xuutiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama ayaa la soo warinayay ayaguna gantaalo ay ku weerareen magaalada Tel Aviv caasimadda dalka Israa'iil ayadana Israa'iil markan ay wajahayso culaysyo dhinac walba kaga imaanaya hadii aan lahayn dhinaca Hamas oo ayadana gantaalo iyo weerar ku haysta iyo sidoo kale Xisbullah ayadana gantaalo dhinaca kaga soo wada iyo sidoo kale ururka Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayadana qayb weyn ka ah dagaalka markaas ka dhanka Israa'iil oo markaan loo amooday in uu muuqato mid ciriiri badan dareemaysa kadib weerarkii ay ku qaaday dalka reer Falastiin oo markaasna shacab badan ay ku leysay iyo sidoo kale weerarkii ku qaaday dalka Lebanon ay ku dishay hogaamiyada Xisbullah Xasan Nasrallah intaas ayaan daawada ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena falaqeynta wararka galabnimo soo saarista tibinta waxaan aniga Daahir Abshir Xasan tani barnaamij caynkan kala inta ku kulmi doona khayr waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh